بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله شرف الأنبياء والمرسلين. maanta waxaan halkan soo nimid horta waxaan soo dhaweynaa magaalada Arabsiyo waftiga uu hogaaminayo wasiirka jidadka horumarinta jidadka iyo gaadiidka waa agaasimaha guud ee madaxtooyada gudoomiyaha hay'adda wadooyinka oo ujeedo kooban oo magaranaysa iyo qada sharaf u yimid maanta magaalada Arabsiyo ujeedadaas oo ah in ay kormeeraan eegaana jidka isku xidha kala baydh iyo Hargeysa oo dhismihiisu socdo iyo dayactirkiisu isla markaana wadada leexata ee magaalada Arabsiyo ku leexato khadka loo dooxa oo ay qaybna ay dhistay wasaaradda hawlaha horumarinta jidadku qaybta kale u baahan dhamaystir in iyada arrinkeeda ay magaranaysa maanta inta kale ay dhamaystiraan ayay maanta u yimaadeen waftigu aad baan ugu soo dhaweynaa magaalada waan u mahadnaqaynaa waqtigooda qiimaha badan ee ayna siiyeen waxaan imka jacaylan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha degmada Arabsiyo Mr. Xamse soo dhaweeyo gudoomiyaha صلى على سيدنا مولانا وحبيبنا محمد runtii maanta farxad weyn bay noo tahay inaanu halkan ku soo dhaweyno waftigan ballaaran ee uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda jidadka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu helinayo agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada iyo runtii solaadiin badan oo gobolkan ka soo jeeda iyo xildhibaano marti ah iyo siyaasiyiin dhammaan intaba inaanu halkan ku soo dhaweyno aad bay farxad noogu tahay meeshan oo ah xaruntii dalxiiska waxa weeye galbeedka runtii waxaan jecelnahay in waxa weeye maanta farxadda iyo qabowga iyo qada sharaftaabana lagula wadaago aad iyo aad baanan uga mahad celinaya waqtigooda qiimaha badan ee madaxda qaranku ay noo soo hureen waxa weeye ay naga aqbaleen casuumadda aan u fidinay runtii farxad weyn bay noo tahay in kormeerka wadadan weyn ee waxa weeye galbeedka soo baxaysa new layerka ee waxa weeye hay'adda Jarmalka ay wado wadanka ka caawisay runtiina ay sidii loo baahnaa oo sharaf badan ay u wadaan wasaaradda u hawlan ay u wado oo runtii maantaba laga dareemayo magaalada Arabsiyo inay sameysay isku soo dhawaansho badan oo caasimadii iyo degmadii oo runtii degmadii degaan ahaan dadku soo degayaan oo beerihii la iibsanayo oo baloodha laga iibsanayo oo noqotay degmada ugu qabow ugu quruxda badan ee ugu soo dhow u soo xigta caasimadda u soo xigta ay noqotay magaalada Arabsiyo runtiina inaanu ku soo dhaweyno cid walba gacmo furan ayaanu diyaar u nahay farxad baan inoo tahay wasiirka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxa weeye wasaaradda madaxtooyadu inay naga aqbalaan codsigan iyo casuumadanba aad iyo aad baan labadoodaba si qurux badan ugu mahad celinayay salaadiinta iyo siyaasiyiinta iyo sidoo kale maarayaha hay'adda wadooyinka intaba runtii si ballaaran baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay ku soo dhawaada degmadiinii ku soo dhawaada shaqada qiimaha badan ee sida sharafta aad u qabateen aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim اللهم صل على محمد مركور aad baad salaamantiin reer Arabsiyo madaxdeeda hogaamiyaasheeda odayaasheeda dhaqanka iyo dadka kale ee Hargeysa ka wada nimidba waxaan aad ugu faraxsanahay in wadadii Hargeysa kala baydh ay meel wanaagsan marayso waxa kale xusid mudan in markii la isu geeyay wadadaasi tayadeeda lagu tilmaamay inay tahay wadooyinka ugu tayo fiican ilaa hadda wadooyinka la dhisay sideedaba sida ogtiinba infrastructure-ka waxa la yiraahdaa ama wadooyinka iyo wixii la halmaala aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay dhaqaalaha in magaalada Hargeysa markaan ka soo baxnay Arabsiyo anagoo moodayno wali degmo yar Hargeysa ku jirno baan aragnaa anagoo soo galay wadadaasna markii si weynaatay muddo la sii socdo waxa dhici karta 10 sano dabadeed inay noqoto yaani laba magaalo isku xidhma oo maaragtay aan socodkooduba wax badan loo kala socon waliba marka magaalooyinka eegto saxmadda marka eegto meelaha nus saac loo kala socdaa halkan meel in ka dhowaaba loo socdaa Hargeysa Arabsiyo marka runtii wadadaasi wax weyn bay qabatay wadada qaybtan soo leexatay iyada lafteeda magaalada ku soo leexata oo barkeedna dhismay barkeedna imika lagu tala jiro sida wasiirku inoo sheegay iyo maariyo nala joogaaba inta kalena waa laga hawlgelaya annaguna wixii aan gacan ka geysan karno iyo kelmad loo yiriyaan oo oran karno waanu oranayna si arrintaasi ay u dhawowdo degmada Arabsiyo dhulku degmo waa wadayay laakiin haddana waa ka sii degmo waa goob dhaqaale waa goob wax soo saar waa goob horumar ka muuqdo waa goob caasimadii duleedkeeda ah marka horumar kasta oo soo ay Arabsiyo gaadho
oo wax hargeysana soo gaadhay oo maaragtay ay qayb ka tahay marka runtii aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiinana waan idinka mahadnaqaynaa anaguna waan ka howlgelaynaa kolley soo dhaweyntiinaasi waxay noo sheegtay inaad naleediin in hawsha sii badiyo shaqadana halkaa laga sii wado marka aad baad u mahadsantihin الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بقى مهد الملك الكوبات مرلبات وحنو مهد قيناه وزارة قاديدك عرك إيا دوك إيا بضة إيا ودوينك ماريها هيدا ودوينك أقاسمها قودة مدحتوية xildhibaan Saciid Cilmi Rooble salla calee iyo maamulka gobolka waxaan aad iyo aad isagana ugu mahadnaqaynaa anigoo ku hadlaya magac afka degmada Arabsiyo waxaan aad iyo aad isna ugu mahadnaqaynaa kontraktarka qaatay dhismaha wadada ka soo bilaabantay Hargeysa ilaa Kalabayd sida fiican ee uu sameeyay waan ka mahadnaqaynaa waxaan ka mahadnaqaynaa oo kale inay isku xil saaraan inay noo leeyarkii sare noo saaraan daamurka oo caraf noo geliyaan oo waddo nooga dhex sameeyaan magaalada Arabsiga gudaheeda aan qorshahooda hore marka hore ku jirin baryadayada iyo baahidayada darteedna ay noo gudeen waanu ka mahadnaqaynaa waxaanu leenahay intaa hay-adood iyo intaa shakhsi ee maanta jooga hay-adaha aanu sheegnay cimrigiinu ha jiraanu leenahay dhammaantood cimrigiinu ha jiro waxaa baahi weeyi waa hawl qaran oo aad u xil saaranaydeen marka horeba ninka hawl qaran oo uu xil saaran yahay qabtaa ayaa loo mahadnaqaayee dee nina gudan waaye cidina u mahadnaqi mayso maanta waxaa la leeyahay nin mas-uula oo shaqadii loo diray 10% ka qabta waa la leeyahay raggaa aan tiriyey dhammaantood waxay ka qabteen 70% bay qabteen way dhammaystireen un baanan odhanaynin 70% waxaanu codsanaynaa haddaba ugu dambeyn waxaanu codsanaynaa inta naga dhiman ee dooxa marka laga yar tallaabana ee dhayfarshankii aad samayseenna sacaatul wasiir inaad maanta isku kaya xilqaantaan oo magaaladu way kala go'an tahay dooxana kala gooyey ardaydu halkaasay dhigataa iskuulkeeda way ka arkay magaalada dadka ganacsataduna xaggan ay degan yihiin waxbarashaduna xaggan ay deganta iyo tacliintu inaad soo kaaya xidhan hadduu roob doona waa halis markaa bal horta laamidaa intaa yare laamida labada laamay isku xidhaysa in intaana laysoo kaaya xidho magaaladu waa magaaladiinnii soo dhowaadaanu leenahay waxaanu ka mahadnaqaynaa oo kale waddada weyn ee qandaraaska aad ku bixiseen waanu ka mahadnaqaynaa maalintii cismaan waanu wada joognay tandarka Kalabayd la keenay dhammaan kambaniyada cumaani kambaniyadii ka soo qayb galay suldaanku ka mid ahaa waxaanu niri annaga eegan doonaanu niri meesha wixii la dhigayo dawladdu hadday dadaashay oo ay hawsheedii qabsatay annagoo dadweynihii loo sameynayay ayaa waxaanu ka eegi doonaa shirkadda qaadata cumaani ilaa hadda intaad qabato waad ku mahadsanta wax nacam nusqaana ma laha inta dambe kuu dhimanna insha allahu tacaala inaad sidaayasi kasii wanaagsan u sii samayso iyadana waan rajaynaynaa waxaa kaloo sacaatul wasiiriyadna aad iyo aad baahi badan ugu qabnaa 18 kiiloomitir ee Kalabayd ka bilaabmee wajaale gaadha inaanay kala goyn wadada 70 kiiloomitir ah macna yeelan mayso haddaanay 18 kiiloomitir raacin macna badan oo yeelanaysa ma jiro oo halkaa wadamo kama xigto waxa ka xiga waa roob waa dheeri waa halkii la gelayay waa intii wadada u baahneed beentaasina intaana waxaan idinku codsanaynaa waad wada joogtaan hay-addii waddooyinku way joogtaa madaxtooyadii way joogtaa kambanigii wuu joogaa wasaaraddiina way joogtaa isku tago oo meeshaa doon ama miisaaniyadda dawladda ka sameeya ama tuu hay-adeed noo doona oo ama annaga naga guraba oo contributionba nooga dhigo oo annagaba naga dhex sameeyo inaanay waddadaasi ilaa wajaalana qabyo naga noqonna waanu idinku codsanaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سلام وزيرك وزارة قاعدك يا ودوين هربت ودوينك أنا أسمع جودة مدحتوية حلوانا دا سلادينتا عقاشة هالدوركا دقانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناسبة قيمة غاية لأعد بدوكم هاتسنتين وأنا كفر أحسننا هي درينكينا أذكر جواب سان عقبت كنت كل واجب قرنوا نصارى وي ودهان با
تكله وحويا وإن لو ذاقنا درانك في حد اللي عندنا مسؤول ونسان وح حسد مدن فهذا وضع كل تولى شرحه وحوي متقنا وما بعنا شرحات قيمها أولاد هاي فائدة أولاد هاي وضع هذا أنه وضنه وزارة هذا هان هلك مرس الحمد لله رب العالمين وكفر حسنا سيد السلطان كشجع مالنتا ونقول لي والله حساب دونا أنا وعن وني وحصص عضا بنجد أنا وحلا مريك كجرا يا الله ضاريو الحمد لله وحنا أولا أنا هلك حسد مدن سوى الجيرة ونعمل البوان كتشوفنا هذا نقطة وزير هذا نقطة كونتراكتور هذا نقطة شغالها كلام متقنا هيدا وهي نقد من أنت كله وضدنا وسيدا السودان كريم كأمن سنة هذا نقطة كلابير إلا إيو وشاله واي وشاله كلابير إلا دلا أنت برمو ونكسنت هذا أنت بنكي أو أدمودو اللي بهالك إمك أو دبعته كده عادي أنت كشيء سنة أيديكسو وحالات قارة كسوان تاي تاسيب حوي تلو إن نسخنا ما نوي تنا إنتنا إلهي أنو باسترو دمستكين وحن دوني أنا هالكن آدي يادو ما نقو سلطانكا وأونركا كونتراكتوركا كمبانيجان هذا دسية سؤال الله ما ماذا كل دم وحلا هذا لا قارن منك على غير هذا منك قارن مدش قارن منك وحبنا بنوجنا ظروفات بدنا بنهايستا سيد ونولا دلالي أما أنا أهين إنه شقامها أنا إيو كم عاش معه وطنيات بعيسى ما لي ودوان حسوسي كل يتولى مركز شقة جبتو وعي مادة هكا بس يسكون عبعي مادة وعنقول واحد هاي أسموات أدنى وتكدو أنتو اسكراب كمان قال له ده وده قرن بعضها ده الله سبحانه وتعالى بالساقط وجوز ده سواء عرضه جور الهابو لأنما ده رش قالوا إنما بتشوره معه مربي كحنا تاني ده هو وجوز ده الحمد لله أدبر نقول فرحنا أنا قعدت كده حمل السنين وأنا نين أدرس السما كرسو نين كل الدرينا نين دولة يودن الله صاحبه نين تغيدي يودن نين كحشانة يا عماني بهالك كجت نحنا ويان مركا ونوجد ويا أنا قعدت كستا هذا الكبدين مايو وحيابها نجا عصتين دي وزير كي بوجهه بمعنى كلمة أنا أقول كل تولينا ترى سكون قرنا كل وأوضلنا هاي الحمد لله أنا ونقول فرحنا هاي رجع كلام قوية هندي ترى كنا وجهه وده معرضي مؤلف نقول كرا أفكار عصبنا كيرين كرا اسكتنا شاي ودجوكنا أدو رأسيين لأن عكلا والله هل كان مركي أنا قدام بان هذا وش قينا إن مركي عارفين شيء كسبينني لكن أنا جا ورقني مهم ده لا ده مركي هذا حكى لي وسوق الكريم خلاص اللي وسوق ليه كوان شلامة مثل ما هذا كلاش قبض با دعوة وده بابورتي نبرق وضع رجع وشقة في أمريكا قبتين يقولوا كل هذا مستركيدنا لا وضع مهلات بعدين نقطة عرب سيئو هذا نقطة هالكابا كل ثلاثة دنا وزير كحكورن دونه وعارف مهم وتجن تدري السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزيرك iyo madaxdii kale hay'adda wadooyinka iyo sultaan Cumaani iyo sultaan Ismaaciil iyo Cuqaasha iyo deegaanka sharafta leh ee maanta sida quruxda badan leh loo xasubay dhamaantii baadiyaad baldi salaamaya salaanka baadi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka baadi horta runtii anigu aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay waxaan runtii aad iyo aad kale ugu faraxsanahay إن الله لي تقصين يسي حولها ديتون يسي نو دم بحال كن سكودي مع مير كنا تعادي عبد كوس ومحدقيا أدقي تجان كجوا سقور بدر وشرف له أنا ما أنتي جو رئيسي أنك قديو إن أربسيو تلام يجيب حاجة يدك حاجة مقالة بلانة دعيد بتقانو على الأقل تهرتا اللي إذا نقعد حتى وضد السيو بدل ما الله وايوا هلك سبحان الله عرّ يا أول وقت سيدا ماشي اللي ينادو مقالة اللي ينادو ما يبدل ما محل ينادو اللي فروق هذا أي عين كاسة لا بقى سبحان العراء مقالة اللي قد كي كتشتها والله ما أركب مقتادة لكن شنو مقالة بالله marka horta aad baad meeyr adiga iyo deegaankaga iyo odayaashaada intu qaytidii casuumadii sharafta lahayd maanta reerta guutaatiino cunto aan lagu bacunin hargeysa ayaa samaysayna aad iyo aad ugu mahadsantiin tan waxaan leeyahay runtii waxaan u mahadnaqayaa wasiirka waxaan u mahadnaqayaa aad iyo aad sultaan Cumaani caan buu noqday imka waa aragnimo badan oo wadooyinka uu yeeshay waa ninka la sheegay xalada kale
nina dooniba maxaa la yidhi ku dhex joogaa nina dhaqashuu kugu dhabartay marka waxa weeyaan waa dhaqashadiisa runtii aad iyo aad baad sultaan adiguna u mahadsan tahay baaraka allah fiik hawshan wadde hadday noo dhammaato sida quruxda badan aad u wadid de waxa inoo bilaabmaya nimcadiide haddii jidku kuu dhammaado dee berberi kooridoorkii bay lahayn dabadeetana salla caleh waxaa laga yaabaa dee inaan markaas cabada ka leefin insha allah aad iyo aad baan idinku tacaynayaa aad iyo aad baan idinku mahadnaya maxaa wasiirka horta runtii labada wasaaradood aan ugu jecelahay aad ugu shaqada badan leh waa biyaha iyo wadooyinka oo runtii dhaqdhaqaaqooda aan salla caleh waliyaha kale dee weli malaa waa soo dee salla caleh way soo diirayaan laakiinse qoladaas horta xuuftii hore way dhaafeen wasaaradihii aad baan idinku mahadnaqayaa mar labaadna aad baan idinku mahadnaqayaa reer arabsiiyo salla caleh wasalaamu calaykum waraxmatullahi anigu waxaan u mahadnaqayaa wasiirka iyo maareeyaha iyo maayarka iyo magaasiminka guud ee madaxtooyada iyo suldaan ismaaciil iyo salaadiinta iyo oqaasha kale iyo xildhibaanka anigu halkan doorkii aan kale hadalkayga iga bannaan waxa weeye anuun maanta faraha badan dhay soo jeediyey inaan idinka mahadnaqan waa mahadsantihiin mashkuuriin insha allahuna xasna danakum sidaa idinku iga rajaynaysaan ayaan insha allahu shaqadan u qaban doonaa biidni illahi tacaala aad baan idiin salaamaya dhammaantiin magaalada arabsiyana waa magaalo aad iyo aad u qiimo badan oo soo dhaweyn badan baan kala kulana markaan magaalooyinka tuulooyinka marayno qaar baan marba lasla jiisaala laakiin meeshan magaaladan soo dhaweyn badan baan kala kulanay shaqaale ayagoo dhan baa u heeganaya wadooyinka idhahdeen marba wadadaba ku dunaya halkan waxaa uga qabanaa marka aad baa u mahadsantiin maayar idinka iyo deegaankiinaba dhammaantiin waa idin mahad celinayaa shukran wasiir anigu waxaan u mahadnaqayaa wasiirka iyo maareeyaha iyo maayarka iyo magaasiminka guud ee madaxtooyada iyo suldaan ismaaciil iyo salaadiinta iyo oqaasha kale iyo xildhibaanka anigu halkan doorkii aan kale hadalkayga iga bannaan waxa weeye anuun maanta faraha badan dhay soo jeediyey inaan idinka mahadnaqan waa mahadsantihiin mashkuuriin insha allahuna xasna danakum sidaa idinku iga rajaynaysaan ayaan insha allahu shaqadan u qaban doonaa biidni illahi tacaala aad baan idiin salaamaya dhammaantiin magaalada arabsiyana waa magaalo aad iyo aad u qiimo badan oo soo dhaweyn badan baan kala kulana markaan magaalooyinka tuulooyinka marayno qaar baan marba lasla jiisaala laakiin meeshan magaaladan soo dhaweyn badan baan kala kulanay shaqaale ayagoo dhan baa u heeganaya wadooyinka idhahdeen marba wadadaba ku dunaya halkan waxaa uga qabanaa marka aad baa u mahadsantiin maayar idinka iyo deegaankiinaba dhammaantiin waa idin mahad celinayaa shukran wasiir waxaanu halkan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasiirka gaadiidka wadooyinka jidadka iyo agaasimaha maareeyaha guud cumaani oo shirkadda qandaraastay wadadan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu ugu mahadnaqaynaa waxqabadka ay qabteen iyagoo wajigoodii qabsanaya haddana wixii muuqda ee indhahu arkayaan iyo afkuna ka garaabaa soomaalida waxay tii waxay indha arkayaan ba ilka gooyaan waxay indho arkayaan ba afka ka garaabaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa reer arabsiyana waxaan leeyahay war sidaa laydiin buubuulinayo laydiin ammaanayo idinkuna uga soo baxaa maanta la shaqeeya cumaanigu markuu waddada wado halkaa yar wataa la codsaday oo ilaa xasan xaaji loo dhaxrigtay hortiisa ilaa kantaroolkii halkii kale askarkii jiifay iyo dooxa intaa yar u dhaxaysa intaana wataa laydiin ogolaaday codsigii marayo anu waxaan ku diri lahaa kole halkan waddada alla bidi ka soo gelaysana in waxoogay waddadii wataa soo gashay la yidhaahdee taana in lagu daro ayaan aad iyo aad taana anuu soo jeedin lahaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa maanta waa maalin waxqabad inagu u mudaharaadi mayno baa laga dhigay heblaayaha laga tegey arabsiya waa degmada intaa laga arkaysaan lamana soo qaadin mudaharaadna ma jiro cadhab ma jirto way iska iman doontaa insha allah waxaan leenahay reer somalilan war fadhiga ku suga hadegadegina shalaynu dalka soo gallay inagoo waxba inaga soo horrayn oynu meel bannaan u nimid maantana wataa dalkasi aynu ku hamiyeyno inaynu diyaarada kicinno waddooyinkeennii baa isgaadhay tii dambaysa jibuuti wataa imika lasoo dhagax dhigay waxaa inoo dhammaanaysa tii ceerigaabo magaalooyinkeena iska joogsanayna insha allah waddooyinkii aad iyo aad baanu xukuumadda iyo wasiirada iyo inta ku shaqalaba ugu mahadnaqaynaa idinkuna aad baa u mahadsantihiin saacadda wasiir aad iyo aad baanu ku mahadnaqaynaa halkuu ka yidhi laba wasiir xildhibaanko 3 wasaarood baa shaqeeya wasaaradda biyaha wasaaradda jidadka iyo waddooyinka iyo wasaaradda beeraha 3 wasaarood oo dhaqaaqooda aragna waa kuwa qaarna halka sheegay iyo ma aragnaba halka sheegay maayo magacaabina maayo laakiin waa la arki doonaa
aad iyo aad baan saacadda wasiirka ku mahadnaqaynaa adiga iyo cumaaniga waxaan leenahay intaa yara fakortaana laga biiya taana noo yara gujiye yar oo halkii hala yidhahdo taalka alle wadada alle mid ka soo gelaysa arabsiyo intaasaa noo dhiman oo keliya aad iyo aad baa mahadsantahay wasalaam diinta gudoomiyaha degmada odayaashii cuqaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu martiqaadka iyo waxqabadka waa ilaahay baa mahadle waa idinka mahadnaqaynaa sidaa ragga hore mahadnaqii dhameeyey mid hore kaftanuma raaci lahaa beereedu maahmaha meele ka wada iskaga mid tahaa jirta oday yar baa beer ku bootay gidteebkaasuu arkay haruurkiioo qaayisayoo labadii dhegooda yaryaraa ay qoorta rogeen habeenkii dambe uu saa weegay maalinta wuxuu idhi quulow nacas buu idhi dheglaydaadii ka daysan lahayd oo karsan lahayd haruurku hadduu yara qaayso roogku markaa soo mari waayo dhagaha yara markaa uu jiifiya markii dambe u arkay iyadoo daad soo rogmado labadii dhagood kiciyo iska raacayaan labadii dhagood muddo rasaas dhacaysa wuxuu idhi quulow nacas dheglay kalun dhinaca ka raaci lahayd imanka ha sii badinina haddii in badan laydiin qabtay dhanka dheglay kale dhinaca ka raaci lahayd hasi wax kusii dardarine intaa la qabtay ku mahadnaqa intii la awoodi karo rooma maalin laguma wada dhisin marka intii la dhisay ku mahadnaqa inta dambana haddii alla ka dhigo iyadana waa laydinku dari doonaa fud la tuuray sooma noqdo meeshii yarada wax laga qabtaaba qaranka wax loo qabtay ka mid tahay taynu u baahanayna waa taa xukuumadda iyo shacbigu inay isgaadhaan baynu u baahanay oo xukuumaddu shicibka ay isgaadhaan baahideeda ogaadaan oo aan afmishaar u dhaxayn aan oday u dhaxayn oo nin muraadle u dhaxayn hadday shacabka iyo xukuumaddu isgaadhaan wax badan baa la gaadhaya laakiin waxaynaan ogolayn xukuumadda shacabka inay isgaadhaan oo jidgooyo badan baa jirta oo afmishaar leh oo xildoon leh oo muraado badan leh hadday taasu meesha ka baxdo oo soo baxdo in xukuumadda shacabkeedu isgaadhaan baahida iyo dhaliisha labadu way sawirnaanayaan laakiin qayadu iminka wax badan kale ku sawiran tahay aad iyo aad baan wasiir idinku mahadnaqaynaa wixii aa qabataanba waa laydinka mahadnaqayaa wixii dambana waa la qabsan doonaa ilaahay haynoo gargaaro haynagu garab galo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadda hore ilaahay baa iska leh talabaad waxaan halkan uga mahadnaqaynaa wasiirka jidadka iyo waddooyinka iyo hay-adda waddooyinka dhisaysa suldaan cumaani dhammaan agaasimihii madaxtooyada agaasimihii waddooyinka dhammaan maayirka magaalada arabsiyo dhammaan waxaanu idinka wadan dhahaynaa sida wanaagsan eed maanta noo soo cajiibtiin saacatulwasiir aad iyo aad baanu haddii aanu nahay reer arabsiyood ayaanu saacatulwasiir idinku mahadnaqaynaa soo dhowga baanu ku leenahay wasiir oo magaaladaadii waxa weeyaan sida wanaagsan eed nooga ajiibtay baanu kuugu mahadnaqaynaa cumaani hay-adda waddooyinka dhisaysa aad iyo aad ayaanu haddaanu nahay arabsiyo aad ayaanu ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee wadaninimada ah ee xilkasnimada ah ee mas-uulnimada ah uu waddadaa maanta hargeysa iyo kalabaydh uu maanta u wado ee uu arabsiyona qaybta uu ka qaatay ee wanaagsan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa intaa yar noogu soo dartay kolley funkortaa yar aad nooga biditayna mahad aada ayaanu kuugu mahad celinaynaa cumaani si wanaagsan waa waxqabad oo wanaagsan oo aad oo muuqda ayaad wax u qabanaysaa ilaahay ha kula garab galo ha kuna qabto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu caleyhi wasalam dhammaantiinba ummadantiina iyo madaxdiina ma waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu marka koobaad ilaah baa mahad leh ragxiga waxaan idinka mahadnaqaynaa martiqaadka aad nagu martiqaadeen magaaladan arabsiyo iyo beertan quruxda badan leh runtii waxay annaga noo tahay uun waajib aanu lahayn baynu gudanaynaa carabta waxay tihi laa shukran calaa waajibak laakiin qofku marka uu arrimaha aad qabatay kugu bogaadiyo waxay kugu sahlaysaa inaad sii dardargeliso shaqada gacanta ku haysay marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa runtiis ma lihin onbeersan baad qabateen laakiin intan waxayna tusaysaa inaanu dadaalkii halkay kasii badino waanad ku mahadsan tihiin haddaan usoo noqdo runtii aniga iyo cabdisaaq shaqadan wadadan hore waxbaan ka wada qayb qaadanay shirkaddan China Honor Group iminkana waxaan jecel lahay iminkana ka wada hadlaynay waa la qabanayaa labada dhinacba dhinaca shisha iyo dhinaca sokaba insha Allah waa la qabanayaa iminkada lafteedaan ka wada hadlaynay markuu imika yimid waxa jira mashruuc wax la yiraahdo wax jira mashaariic wax la yiraahdo social service mashruuc ka soo la qabanaya waxbuu raaciyaa isagu
oo caalamku jira ama biyo la raaciya ama ceel baa la raaciya oo nidaam caalami ah cabdirasaaq wuxuu jecel lahay uu ka soo baxay intana qoran muu qaban waxyaabo badan oo fara badan ayuu qabtay waana lagu mahadnaqaynaa annaguna wixii taalkayga insha Allah waan qabanaynaa haddaan ku soo noqdo suldaanka kala baydh iyo wajaale mashruucaas waa mashruuc ballaaran waxaanu jecelahay mashruucaas wuxuu ka qayb yahay mashruuca barbar corridor ka laftiisu waa ka qayb laakiin kaasuu ka horeynaya oo maadaama waddada intaa la dhisaayo 18 kilomitir waxaa la dhisay waddo cusub tan hore meesha jirtay ma iyada la qaadmay sidaas ahaanaysa diversion road bay ahaanaysa inta waddada la dhisaayo ayaa la dhisay laakiin waddo 12 mitir ah oo standard ah sida Ethiopia loo qodi doono insha Allah dhagax lagu soo dhisi doono basementkeyga ayaa la wadaa marka waxaan jirnaa labadan waddo saddex gelinina maadaama tan socoto tan hal dhex gelinina laakiin waxaan idin sheegaynaa wuxuu ka mid tahay mashruuc barbar corridor oo la dhisayaa insha Allah haddii la ka dhigo maanta ay barbar dhamaan subataasna la dhamaanaysa 18 kilomitir waxaan jecelahay marka intaan idinku bashaareeyo oo maskaxda ku haysan waxaanu ka tegaynaa ma jirto ugu dambeyn sida loogu mahadnaqo waxaan jecelahay inaan contractor ugu mahadnaqo ninkan umadiisa ugu mahadnaqin ilaahay ugu mahadnaqo ugu maadsan yahay inuu gartay runtii waxaanu ka codsano kasta waxaan noqotay halkan noqonayaan noqonay madaxtooyadeena waxay ka codsato qabta abisal wadada dhan imika dhisan la maro hargeysa loo maray Mansoor iyo isku xidha iyo magaalada kaasoo safari isaga dhisay marka runtii waa nin xagga ihsaanka ku fiican ilaahay waxaanu ka rajeynaynaa inuu miisaankiisa xasanaadka ugu daro anaguna dawlad ahaan daabaalka uu celinayna qofkaan abaalka celin baa guliita anaguna mar intuu ku jiro ayuu ma isaguna noo jiray oo ka warhaynaa insha Allah haddii la ka dhigo waanad maasantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.